السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اختيارتي دمانتي وأنا ودا salaamaya. Intaa ka bacdi insha Allah hore waxaan uga soo hadalnay waxaan soo wadnay musalsal ku saabsan control panelka. Hore insha Allah waxaan uga hadalnay control panelka si guud. Feature-rada ka midana waan ka soo hadalnay sida applet-kan user accounts oo kale. Programs and features waa ka soo hadalnay. Maanta insha Allah waxaynu khulaaseynaa si yar oo kooban devices iyo printers. Devices iyo printers device-ka oo kale waxa laga yaabaa hadda bluetooth-kaaga marka aad computer-kaaga xiriirinaysid halkan midigta intaad tagtid inaad halka ka xiriirisid waa sax laakiin taas ku yeeli mayso inaad device-yadaada oo dhan option aad ku maamushid halka hadda kaama tusayso laakiin halkan waa meeshii ka tusi lahayd haddaad tagtid device-ka halka haddaad ku dhufatid applet-ka waxaynu ku dhufanay devices iyo printers baynu ku dhufanay waxay noo soo saaraysaa halkan setting-kan hadda inuu sidan usoo baxo waa arrin iska cusub oo beri dhow Microsoft ku dartay laakiin dhib male taa uma jeedno haddeer again sida oo kale haddana halkan device-yadii xabad waad ugu dari kartaa ama ha noqoto bluetooth keyboardkii ha noqoto mouse-kii ha noqoto telefoonkaaga ha noqoto hadday doonto wax kasta oo device oo aad rabtid bluetooth ahaan inaad ugu xidhid halkan waad kaga xidhiiri kartaa kuwii kale oo maanatarada ahayd ama TV-yada ahaydna halkan iyaga laftooda waad kaga xidhiirin kartaa halkaas waa shakhsiyadii device-yada weeye laakiin device-yada oo dhan inaad si guud u maamushid halkan more devices inaad tagtid more devices markaad tagtidna inaad setting-kooda oo dhan device-yada meesha laga maamulo oo dhan oo halkan ah inaad wada tagtid device-yada oo dhan printeradii multimedia-ha ayo nooc device oo computer-kaaga ku xidhiidhsan ama aad rabtid inaad ku xidhiidhsid halkan waanaad ka maamuli kartaa waana ka arki kartaa haddii aad rabtid inaad mid kale ku dartid waad ku dari kartaa printer-ra haddaad rabtid inaad ku dartid printeradu nooca ay kala yihiin mid walba waa arkaysaa haddii aad rabtid inaad mid walba si gooniya aad u aragtid property-giisa inaad u aragtid xagga midigta ku dhufo mouse-ka waxaad tagtaa properties tag markaa wuxuu ku siinayaa si guud iyo si gaar ahaanba mid walba wuxuu ku siinayaa informationkiisa quseeya buu ku siinayaa halkan haddaynu tagno see what is printing wuxuu ku facilitinayaa halkan oo ku yeelayaa in aad printer-kaaga line-ka ama queue-ka printer-ka inaad aragtid meel xafiis oo office hadday tahay qof walba oo network-kaaga printer-ka isticmaalaya qaabku uu isticmaalayo taa lafteeda information-ka waad ka helaysaa haddii aad rabtid printer-ka inaad cillad uu kuu keeno halkaa waa meelaha aad ka maamuli kartid option-kii inaad device-ka ka tuurtid iyada lafteeda waa ku siinayaa waka marka insha allahu tabaaraka wa tacaala devices and printers si guud shaqada ay qabtaan waa taas weeye